ciidamada Soomaaliyeed ee ku maqan Eritrea waxa ay Soomaalida dhexdeeda ka abuureen walaac hadal haynaya in laga dhigo mowduuc siyaasi ah dadka aadka u dhaliilay oo ku talax tagay wax ka sheegidooda ilaa heer in la iibsaday dagaal shisheeye la gashay waxa ka mid ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo imika talada Soomaaliya haya maalmo ka hor madaxweynaha iyo wafdi kooban oo uu hogaaminayo ayaa u safray markiisii labaad xerooyin tababar ee ay ciidamadan ku sugnaayeen labadii sano ee la soo dhaafay kuwaas oo ku yaala dalka martigeliya tababarayna ee Eritrea Gaylan Media waxay raaraac ku samaysay galka ciidamadan intii aan ku guda jirnay dabagalkeenna waxaan helnay cadeymo muujinaya madaxweyne Xasan Sheekh oo bedelay mowqifkiisa ku wajahnaa ciidankan cadeymuhu waxay banaanka keenayaan madaxweynaha oo raaligelin shakhsiya u diraya dhigiisa Eritrea Asiyaas Afwerki ka hor inta uusan bilowgii bishii Julaay u safrin dalka Eritrea aan dib u laabanay bilowgii sanadkii 2022 madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay madal uu qabsaday ayna joogeen inta badan kooxdiisa isku raranka ee UPD ayuu ka jeediyay hadal ka fog curfiga diblomaasiyadda iyo maqaamka madaxweyne hore kaasoo ku wajahnaa shakhsiyadda madaxweyne Afwerki iyo waxqabadkiisa ku wajahan Soomaaliya war dadka lagama abaal dhac been lagama sheego propaganda laguma furo Eritrea maxay noo qabatay anaga xaraba moogta dadka in aqliga laga xada ma aha Asiyaas Afwerki iyo dalkiisa Eritrea Soomaaliya maxay u tareen midowgii maxaakiimta islaamiga markay carareen ee aarastay magan galiyeen siiyeen meel inay dagaalamayaan meel ku siiyeen markii dambe waa heshiinayna ma dagaalamayna dheer waa tiisoo iriyeen war maanta yaa nala dhihin marka Asiyaas walaal oo saaxiib Eritrea xabiib Djibouti cadow ah yaa nala dhihin iskool Eritrea ay dhistay arkay iyo isbitaal meel ay ka furtay iyo MCH oo cunug lagu tallaalo war dadka Soomaaliyeed oo yaanan aqliga nalaga xadina indhihiina fay kala siiya muddo ku siman 40 baxguuradii ka soo wareegatay imaanshihii xukunka ee madaxweyne Xasan wuxuu bedelay dhammaan aragtidiisa ku wajahnayd xiriirka Eritrea wuxuu qiray abaalka weyn ee madaxweyne Afwerki iyo shacabkiisu u galeen Soomaaliyada cusub wuxuu ku tilmaamay walaal weyn oo Soomaaliya ku galaday hadiyad qaali ah isagoo carabka ku adkeeyay inuu si shakhsi ah ugu tagayo ugana mahadcelinayo abaalkaas cadeymaha aan helnay waxa ka mid ah muuqaal la duubay 2 toddobaad ka hor safarkiisii koobaad ee madaxweynuhu uu ku aaday Eritrea raaligelinta muuqaalka waa laga qariyay shacabka iyo warbaahinta Soomaaliyeed madaxweynaha Eritrea ee walaalka Asiyaas Afwerkina aan u mahad celino waxa weyn ee hadiyada dhaxalgalka Soomaaliya u qabtay inaan shakhsiyan ugu taga raba u mahad celin adikana idin imaado bilowgii bishii Juun sanadkii 2022 madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sii daayay hadal u faafay si aada kaasoo ka dhanaha ciidamada xoogga dalka ee lagu tababaray Eritrea walow dib u imaanshihiisii xafiiska kadib hadal hayeenkiisu ku sheegay war ibliis waa la qaaday waa la xaabiyay Eritrea lagu shubay tababaray ku maqan yihiin ciidamadii siyaasiyiinteena waa lagu handay waxa ciidanka Eritrea imaanayo waa la dardara waa la xasuuqa ilaa waa niman dhalinyaro oo intan mageen ka baxeen la qalday xaqana la iibsaday waa la iibsaday maxaa ku tilmaam kartaa adiga wax kale oo aniga ku tilmaam ma qaan dhalinyaradaas waa la iibsaday Eritrea la geeyay war iyo wacaal wax u haya male war soo duulay oo xaq ka soo duulay oo waa dhinteen oo Aksum ay ka dagaalameen oo xaqay tageen Makala lagu laayay iyo xaqay dhaceen iyo muxuu buuraha ay ka daateen oo qaran muxuu ay ka dhaceen oo waa dhinteen oo waa saano 23 bishii May ee sanadkan madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xil wareejintiisii si daahfuran markii koobaad uga hadlay xaalka ciidamada Soomaaliyeed ee loo qaaday Eritrea ciidamo waxaa jira aad u far badan oo tababar noogu maqan ay ugu horeeyaan ciidankii ugu badnaa aan dibadda dalka dibadiisa aan geynay oo dhan 5,000 oo hadda lagu tababarayo ama tababarkooda ku dhameystay dalka Eritrea ciidankaasi tababarkoodu waxay dhameysteen sanadkii la soo dhaafay dhexdhexaadkiisii iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed
iyo doorashada aan ku jirnay inay saamayso mudane madaxweyne ciidankaas waa kuu diyaar muuqaalka qarsoodiga aan helnay oo soconaya in ka badan 4 daqiiqo loona diray ciidamada Soomaaliya ee ku sugan dalka Eritrea la duubayna intii uusan madaxweynuhu arkinba askartaas lana qariyay dhammaadkii bishii Juun wuxuu madaxweynuhu cududaar ka bixinayaa hadaladii hore uga dhacay ee ku wajahnaa ciidankan wuxuuna ku qirayaa inay ciidankan lagu tababaray Eritrea yihiin asaaska ama rajada Soomaaliya ay sugayso waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan geesiyaasha ciidamadeenna wiilasheenna muddada dheer dadaalka iyo adadkaysiga ugu jiray dalkan sidii ay u daafici lahaayeen xirfadihii iyo xeeladihii ay dalka ku daafici lahaayeen oo amnigiisa ay ku sugi lahaayeen cadowgana ay ku baabi'i lahaayeenna u maqnaa muddo dheer wiilasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan ee jooga dalka Eritrea ayaan fariintan u duubayaa waxaan leeyahay wiilashaydii geesiyaashiyay waxaan idinkaga mahad celinayaa dulqaadka iyo aad muujiseen iyo adkaysiga aad muujiseen dalkan rajadiisa qaybta ugu weynaad ka mid tihiin adika rajada dalkan idinku xiran tahay waa idin imaanaya waa idin dhex fadhiisanaya waa idin dhageysanaya wiilashaydu waxaan idin leeyahay hambalyo mar kale geesiyaashii waa idin soo socdaa waa idin hambalyeynaya waan la soco qaybta labaad oo aan kaga hadlayno xogaha aadan ka ogan ciidanka Eritrea lagu tababaray ee Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan goorta madaxweyne Xasan Sheekh uu sheegay inay imaanayaan iyo cadeymaha qarsoodiga ee ay hayso Geelan Media kuwaas oo ku wajahan khudbadii madaxweynaha Soomaaliya ee uu diray ciidanka Eritrea ka hor intii uusan tegin ama laba kulmin ciidankaas ma ogtahay maantaba inaad ka maaratid inaad tagto xawaalad haddii aad ku sugan tahay Yurub iyo Ameerika baysi waxa uu ka haqabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg App Store-ka iyo Play Store-ka